wafdigan uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea Cismaan Saalax Maxamed uuna ka mid ahaa la taliyaha madaxweynaha dalkaasi ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxaa wafdigan ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Ambassador Axmed Ciise Cawad. soo dhaweyn kadib wafdiga ayaa loo galbiyay aqalka madaxtooyada Soomaaliya oo ay kulan kula yeesheen madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wehelinayaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Cali Siciid Fiqi. kulanka labada dhinac ayaa la sheegay in looga wada hadlay arrimaha gobolka Geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax Maxamed ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu u gudbiyay fariin uu kaga siday madaxweynaha waddankiisa Asiyaas Afawaki. Danjire Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kulanka kadib saxaafadda uga warbixiyay waxyaabihii laga wada hadlay, ayaa sheegay in qodobada laga wada hadlay ay ka mid ahaayeen safarkii uu dhowaan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland uu ku tagay wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea Cismaan Saalax Maxamed. waxaa maanta saaka subaxnimadii 11 barkii gagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cismaan Saalax oo ka mid yahay la taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani. wafdiga waxaa isla markiiba loo galbiyay madaxtooyada halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo ay goob joogayaal yihiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Yurub noo jooga. wafdigu wuxuu u yimid sii xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya iyo Eritrea. waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Asiyaas Afawaki oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga warramay booqashadii ay ku tageen dhowaan magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Somaliland. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, TV-ga codka Bariga Afrika, Muqdisho.